kulanti wacan daawadayaal waxaan caawi ka hadli doonaa Ilhaan Cumar oo la aqal gashay ninkii gaalka ahaa ee inta muddada lagu xamanayay. maxay tahay sababta ay u guursatay kuna dooratay Ilhaan Cumar inay ninkan guursato ayna furtay ninkeedii hore ee Axmed Xirsi ee 3 caruur u dhashay ee muslimka ahaa. waxaan barnaamijka ku qaadaa dhigi doonaa arrimaha ku gadaaman Ilhaan Cumar iyo xaaladeeda oo intii u dambeysaba meel xun sii galayday markii ay booqatay qaniisiinta iyo dadka isku galmooda horaantii sanadkii 2018 arrintaas oo dadka Soomaaliyeed si aad ay uga xumaadeen. waxayna mar kale Ilhaan Cumar dhaxda ka istaagtay qalbigana ka jabiday dadka Soomaaliyeed. balse daawadayaal inta aanan u gudagelin barnaamijka oo faahfaahsan halka aad nagala socotaan barnaamijkana aad ka daawanaysaan waa shabakada warbaahinta Galaangal News. haddii aad ku cusub tahay ayna tahay markii kuugu horeysay fadlan walaal subscribe saaro calaamada gambaleelka iska hilmaamin muuqaalkana inaad si share garaydo like saarta iska hilmaamin. aan gudagale Ilhaan Cumar oo kamida koongareyska wadanka Mareykanka isla markaana laga soo doorto gobolka Soomaalidu ay ku badan tahay ee Minneapolis ayaa xalashaacisay inay la aqal gashay team oo kamida dadka ku nool wadankaasi Mareykanka isla markaana asalkoodii hore ay yihiin Yahuuda. Ilhaan Cumar ayaa iska furtay saygeedii Axmed Xirsi isla markaana dalab dhigatay maxkamad ku taala gobolka Minneapolis oo dadka Soomaalida ay u badan yihiin Ilhaan Cumarna laga soo doorto. waxay Ilhaan Cumar ka qayb gashay ama kulan ay la tagtay koox qaniisiin ah horaantii sanadkii 2017 ilaa 2018 intii u dhaxaysay arrintaas oo dadka Soomaaliyeed si aad ula yaabeen isla markaana ay ka xumaadeen qalbigoodana dhaawac weyn u geysatay. balse arrintu waxay ka sii dartay godna ku sii riday markii Ilhaan Cumar xalay barteeda Instagram-ka ay ku shaaciday arooska ayada iyo team isla markaana isku guursadeen Faraanti sida aad ka arki kartaan sawirka hadda idin muuqda ee hortiina yaala. maxay ku kala tageen ama ay ku kala irdhoobeen saygeedii hore Axmed Xirsi inta aysan kala furina maxay isla soo mareen. Ilhaan Cumar oo maxkamad ku taala gobolka laga soo doorto ayaa sheegtay inuu guud ahaan burburay mustaqbalkeedii guurkii u dhaxeeyay ayada iyo Axmed Xirsi isla markaana siyaan ka soo kabasho lahayn uu burburay waa sida ay sheegtay Ilhaan Cumar. haddaba arrintan soo shaac baxday ee dadka Soomaaliyeed maanta sida weyn ay u qaadaa dhigeen ayaa waxay walwal badan ku abuurtay dadka Soomaaliyeed iyo arrinta Ilhaan Cumar soo bandhigtay oo ay ku kala qaybsameen isla markaana ay ku kala irdhoobeen. waxayna dadku ka dhiibteen aragtiyo badan oo iskhilaafsan balse dadku maxay ka yaqaanaan team oo Ilhaan Cumar la aqal gashay. aan ku bilaabnay taariikhda ninkan u dhashay wadankaasi Mareykanka ee asalkiisu ka soo jeedo dalkaasi Yahuuda ee Israa'iil ay Ilhaan Cumarna dhawaan la aqal gashay. waa nin nooce ah ninkan waxa uu ku dhashay wadanka Mareykanka gaar ahaan gobolka Tennessee oo ku yaala gobolada wadankaasi Mareykanka gobol kamida. wuxuu waxbarashadiisa dugsiga hoose ku soo qaatay wadanka Mareykanka. wuxuu isla gobolkaasi kaga soo baxay dugsigiisii sare. wuxuu isla gobolkaasi ka bartana cilmiga jaamacadda heerka koowaad balse wuxuu u soo wareegay sanadkii 2008 wadanka Koonfur Afrika halkaas oo uu ku diyaariyay cilmiga siyaasadda iyo sidoo kale ololaha musharaxiinta. cilmigaas oo uu ka bartay wadankaasi Koonfur Afrika intii u dhaxaysay 2008 ilaa 2011 wuxuu wadankaasi dib ugu laabtay sanadkii 2012 isagoo waxbarashadiisa ku dhameeyay wadankaasi Koonfur Afrika uu markii horena u yimid inuu wax ka barto. wuxuu halkaasi ka aasaasay koox u ololeysa ama shirkad
diiwaan gelisa musharaxiinta u tartamaya wadankaasi Mareykanka, balse ninkan wuxuu ka tirsan yahay xisbiga Ilhaan Cumar ay ka tirsan tahay, wuxuuna halkaa ku aasaasay shirkad la yiraahdo Strategy of Group oo u ololeysa dadka musharaxiinta isla markaana qaabilsan inay dadka uga soo aruuriyaan lacagaha ay dadka tartamaya ama musharaxiintu ay si frontaliya ama sadaqa ah donation ay ku helaan. waxayna Ilhaan Cumar ninkan ay isku barteen xilligii musharaxnimada ay u tartamaysay inay u tartanto aqalka Koongareeska, waxaana ahaa ninkii u hayay gacantana ku hayay campaignkii ay Ilhaan Cumar ugu jirtay kursigaasi si ay u noqoto xildhibaan kamid aqalka Mareykanka gaar ahaan golaha Koongareeska. intaa kadib ninkan iyo Ilhaan ayaa waxay ay yeesheen xiriir hoose oo labadooda u dhaxeeyay, midkaas oo ku saleysnaa inay mustaqbalka isguursadaan. arrintan waxaa soo farageliyay isla markaana shaki weyn ka qaaday ninka Ilhaan Cumar qabay ay caruurta u dhashay waa Axmed Xirsi. arrintaas oo ka xumaaday ayuu Ilhaan ayaday taagan tahay oo la yaaban yahay isla markaana xiriirkaasi uu ka shakisan yahay ay Ilhaan Cumar waxay booqatay ama ay tagtay goob ay dadka isku jinsiga ahi degan yihiin ee loo yaqaan gayga ama dadka lesbianka, waxayna halkaasi Ilhaan Cumar ugu hambalyeeyday dadkaas inay isku wataan hawshooda isla markaana ay booqatay sanadkii 2018. balse arrintaas ayaa xaaladda uga sii dartay, wuxuuna Axmed Xirsi markaasi go'aan ku gaaray inuu guud ahaan ka dhaxbaxo nolosha Ilhaan Cumar. oo haddana ninkani ay hadda isguursadeen waa tiim uu gadaal ka taagnaa xaaladahaas oo dhanna oo ahaa mid uu dib ka riixayay. kala tagii Axmed Xirsi iyo Ilhaan Cumar waa markan iyo markii ay xaaladdu ka sii dartay. Ilhaan Cumar ayaa maxkamad ku taala wadanka Mareykanka gaar ahaan gobolka ay Soomaalidu degtay Minneapolis ayay waxay tagtay maxkamad waxayna ka furatay gal midaas oo ayada iyo Axmed Xirsi lagu kala dirayo inay isguursadaan halkaas ay ku soo gabagabeeyaan caruurtana sidoo kale la geeyo meel lagu xanaaneeyo oo ay labadooduba u dhaxeeyaan. Ilhaan Cumar ayaa maxkamadda markii ay tagtay waxaa su'aalo laga weydiiyay sababta ay u dalbatay inay saygeeda kala tagaan caruurteedana ay la geeyo meel lagu xanaaneeyo. waxayse Ilhaan Cumar arrintaasi kaga jawaabtay inuu guud ahaan burburay mustaqbalkii gurigeeda siyaan kabasho lahayna uu u burburay isla markaana dhaawac soo gaaray. madaxweyne Trump ayaa arrintaas guul ku tilmaamay Ilhaan Cumar maadaama ay ishayaan. Trump ayaa lagu tiriyaa ninka Ilhaan Cumar uu ugu neceb yahay wadanka Mareykanka gudihiisa marka la eego Soomaalida ama madowga wadankaasi ku nool. waa qof noocee ah madaxweynaha wadanka Mareykanka. arrimahan ayaa waxay yihiin kuwa si aad dadka Soomaaliyeed ula yaaban yihiin. Ilhaan Cumar ayaa muddadii xalayta ahayd waxay la aqal gashay tiim oo in muddo ay xiriir lahaayeen. muddo 5 bilood ayuu soo jiray xiriirkan. arrintan ayaan waxaa ilaa iyo hadda ka hadal mas'uuliyiinta ugu sareysa wadanka Mareykanka ama xisbiga ay ka mid tahay Ilhaan Cumar ay ku matasho wadankaasi gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga oo ay ka tirsan tahay. Ilhaan Cumar ayaa hadda waxa ay tahay qof ku jira bisha malabka halka Axmed Xirsina uu Muqdisho yimid halkaana uu ku guursaday gabar kale sanadkii 2019 ayaana markii ugu horeysay la arkay arooska Axmed Xirsi iyo meherkiisa oo ka dhacaya magaalada Muqdisho ee Soomaaliya. haddii arrintani ay sii socoto ayaan la ogeyn meesha ay ku biyo shiban doonto ilaa iyo haddana lama oga meesha ay wax ku dambay doonaan. Ilhaan Cumarna waxay ku jirtaa bisheedii malabka iyadoo halkaasi ku aqal galeen. meeshaad barnaamijka kala socoteen aadna ka dhageysanayseen waa shabakada warbaahinta Galaangal News oo ka heshaan wararkii ugu dambeeyay iyo barnaamijyo xiiso leh oo idin raali geliya. haddii aad ku cusub tahay channelkayna markii kuugu horeysay fadlan subscribe saaro calaamada gambaleelkana iska hilmaami si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee dhageysta
barnaamijyadeena waad ku tixantihiin sida markasta ugu daawataan barnaamijyadeena muuqaalka sii shargare saaxiibadana la wadaag Galaangal News ayaad kala socoteen barnaamijka waad ku mahadsantihiin daawadayaal sidaad nagu tixantihiin